shiray soo qabanqaabiyeen dhalinyarada waxgaradka iyo haweenka ka soo jeeda beesha degta magaalada Caynaba oo ay ku qabteen hotel Deere ee bartamaha magaalada Burco ayaa waxay taageero laxaad leh u muujiyeen salaadiinta cuqaasha iyo suldaanka guud ee beeshaasi shiray dhawaan kaga dhawaaqeen magaalada Caynaba kaasi oo laga tashanayo ayaha beeshaasi munaasabadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen dhalinyarada aqoon-yahanka iyo waxgaradka beeshaasi ayaa dhalinyaradii munaasabadaasi ka hadashay waxa iska daba mareen inuu shirkani yahay mid dan u ah beeshani isla markaana loo baahan yahay in la taageero oo loo huro naf iyo maalba dhalinyaradii goobtaasi ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha dhalinyarada beeshaasi Asad Maxamed Dawaar injineer Mustafa Xaaji Faarax Cabdikariin Abukar Axmed iyo Xalimo Xuseen Yuusuf waxaana hadaladoodii ka mid ahaa in ay ka soo qayb qaataan shirka maanta aan ku taageerayno anagoo ah dhalinyaradii beelaha Cumar Jibriil oo aan ugu taageerayno cudud oo aan ugu taageerayno dhaqaale inay iyaguna ka qayb qaataan oo ay ka soo qayb qaadaan shirka ayaan iyagana leenahay dal iyo dabadba runtii taasaan iyagana fariin diray waxaan aad u mahadcelinaynaa oo aan garab taaganahay cuqaasha iyo waxgaradka iyo suldaanka shirka ku dhawaaqay waxaan maanta halkan aad ku arkaysaan indhahay adhiinoo qabanayaan waa awoodii dhalinyarada isugu jirta hablayo inamo inay garab taagan yihiin oo ugu dhawaaqdeen shirka in aad awooddaad maanta ku leedihiin dhaqaale hadday noqoto talo haddii ay noqoto isbarbar taageed intaba inaydi taageerayaan runtii sii garab taagan yihiin waxay kusoo caanamaayeen oo ilaa maanta ay Soomaaliya ay wadanka kula noolyihiin kula dhex noolaayeen waa nabadgelyo shirka ay salaadiinteeda iyo suldaanka iyo cuqaasha ku baaqday waa shir wanaagsan dadkeena ku jirta waxa ugu shaqeeyay meedo u daran Cumar Jibriil tara ugu baahnaa weeyaan waa shirkaaga qasra koornada lagu qabsoonaya sababtu qasmoonaya deegaanka magaranaya waqtigana loogu talagalay odayaasha ku dhawaaqay waan u mahadnaqaynaa waan taageeraynaa baasha iyo waxgaradka beelaha Cumar Jibriil ayaa kaga dhawaaqay magaalada Caynabo haddii alla idin wuxuu dhacayaa 1 bisha May ee soo socotay waxay ka harsan yihiin markaa taas ayaynu taageeraynaa taageero mug leh oo miisaan leh oo ku dhisan cilmi iyo caqli ayaynu ku taageeraynaa oo aan jiba ahayn arrintii aqoonyahan jaamac ibn Jibriil ninkaasoo ah nin muwaadin reer Somaliland oo beesha ka tirsan waxa uu muddo 4 sannadood iyo googa ku xidhan yahay fakarkiisa saynikiisa uu bixiyay oo soo bandhigay xorriyadiisa uu ka hadlay ayuu u mutaystay xabsi iyo in xorriyadiisii laga qaado oo muddo ku siman 5 sannadood waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda inay ninkaan xorriyadiisa sida ku naqsaha badan ay u soo celiyaan si kastaba ahaatee kulankan lagu taageerayo shirka beeshu ku qabsan doonto magaalada Caynaba bishani May ee foodayna ku soo haysa ayaa la filayaa in haddii uu qabsamo ay ka soo bixi doonaan go'aano waxtar u ah ayaha beeshaasi sida inta badan dhalinyaradani ka dhawaajiyeen Shaafici Maxamed Ibrahim shabakada wararka ee Caynaba News magaalada Burco.